السلام عليكم وأنيقو walaashiin idinku soo noqotay salaan kadib waxaan rabaa inaan isku baraarujino xanuunka ka jiro wadankeena adduunka dhan xanuunka saameeyay qaasatan hadda saacadan la joogo wadankeena fara ba'an ku hayo ama aad maxay ahayd u dhibaatay dadka haddii aad la socotid social media oo arkaysaa maalin kaste waxaan arkaynaa soo tacsi iyo maxaan ku dad badan oo ku dhinteen xanuunka waa dilaa adduunka dhan maxaa dhibaato u geystay marka waxaan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogtiin qaasatan kuwa wadanka joogo in aad ka fojignaataan ama aad taxadir dheeraad sameysaan si aad maxay ahayd ku yareyn kartaan aad sameysaan aad kala fogaanshaha ku dadaashaan isu socodka ay yareysaan maxay ahayd si walbo lagu yareyn karo oo la sameeyo qaasatan dawladda in ay maxay ku dadaasho inay bandow soo rogto si kale hadda lagu yareyn karo inay jirto u maleynayo dadku waxaan u maleynayaa inaysan maxay aaminsaneyn xanuunkan maxaa yeelay waxa badatay geeridii dhimashadii waa la dhimanaa because Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay kullu nafsin daa'iqatul maut laakiin anaga waxna looga baahan yahay dadaal marka maxay ahayd walaalayaal dadaala safarka yarey haddii aad meel u safri jirtay safar aad dusan muhiim ku yahay u safrin guriga ku eko haddii uu qof walaalka ama walaasha xanuunsan lagu soo sheego hadaa wici karti sida aad kula xiriir marka please aan ku dadaalno sida xanuunkan lagu yareyn lahaa wajiga hal iska xiro maaska lagu xirto oo maxaan ku dhahaa kala fogaanshaha lagu dadaalo marka waxaan kala ka codsanayaa walaalahay inaad aad u kacdaan oo dadka wacyigelin aad siisaan dadkeena social media isticmaal qaasatan marka videoga waan la soo daahay in xilli hore aan soo duubay ahayd laakiin maadaama aan la soo daahay hadda waxaan jeclaystay inaan idin la qaybsado waxaan aad uga xumaaday dadkii maxaan ku dhahaa dhimashada aad u sii badanayso marka walaalayaal waa la dhimanaa mar walba marka laakiin hala dadaalo xanuunka waa xanuun dilay ah waa qofku ku dhaco waa maxay ahayd dhibaato waaye ma fiicno